Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada Som IT Tutorials iyo cashiradii sequel-ka cashirkii 18aad. Cashiradii ugu dambeeyay waxaan kusoo baranay data normalization. Cashirkan waxaan ku qaadanaynaa hadduu aan idmo sidee tables kala duwan relation la iskula sameeyaa, xogtooda loo keediyaa qaab kala duwan, kadibna qaab isku mid ah aan usoo aqrin karno. Okay. Design and create an organized bookstore database having information of books, authors, and their countries. Entities should be related and separate. waxaan naga rabaa inaan design garayno database oo aan ugu magac darayno bookstore database. dabcan saa magac ka fahmaysidba taasoo keydinaysa xog buugaag iyo qoraayo ama qoraa iyo wadamankooda. Entity haddii rabto inaad fahantid waxaa la dhahaa cashirkii ugu dambeeyaan kaga soo hadalnay an object that database represent ayaa entity la dhahaa. Entitieska waa in ay separate noqdaan, relation ay sameeyaan, inay isla xiriiraan ayagoo separate ah. Si aan taas u sameyno marka designkaas, marka ugu horeysa entitieska waa inaad kasoo saaratid qoraalkan. hadda waxaan arkaynaa tusaalahaan oo kale design create organized bookstore database nameka oo dabcan waa bookstore aan ka dhigaynaa. Having information taasoo keydinaysa xog of books waxaan arkaynaa waa entity, authorska waa entity kale, countrieskoodana waa entity. Countrieskan dabcan authorska wadamadooda waaye, isla authorska xogtooda waa lagu keedin karaa, laakiin waxaan ka dhigaa qaab macnaha oo table kala duwan, 3 table oo kale aan kala dhigaynaa si aad u fahantid relationna marka aan sameynayno. haddaan design gareyno 3 table oo kale ayaan sameynaynaa. waa table keydinayo xog wadaman ama wadamo. table kale waxa uu keedinaa xogta authorska ama qoraayada. table kalena waxa uu keedinaa xogta buugaagta. tableka keedinayo marka intooda marka relation ayay isla sameynayaan. tusaale ahaan oo kale tableka koowaadka aan keedinayno wadamada, wadan kasta waxaan keedinaynaa columnka ID oo ah primary keyga dabcan, iyo wadanka magaciisa ayaan tablekaas ku keedinaynaa. tablekan kalena waxaan ku keedinaynaa authorska waa dabcan qoraayada, waxaan ku keedinaynaa ID, first name, last name, genderka, iyo columnka ugu dambeeyo aan ka dhigay column aan relation kula sameynayo oo aan xiriir ka dhexaysiinayo labadan table. Automatically countrieska inta waa kusoo dari karnaa, laakiin keliya separate table aan ka dhigay. Optionskaasna waa sameyn kartaa. marka separate table hadduu yahay sidee relation tablekan ugu sameyn kartaa? columnkana marka waxaa u isticmaalay inaan ku keediyo ID-yada wadamadan. marka sidaas daraadeeda ID-gan ee wadankan United States, United Kingdom waxa uu relation la yahay authorkan qoraagan ayuu relation la yahay. mid kale marka aan keediyo saas oo kale aan u sameynaynaa. book titleka ama tableka books waxaan ku keedinaynaa ID, book title, priceka iyo issue yearka. sidaas daraadeed asna sidoo kale columnka ugu dambeeya waxaan ka dhigaynaa relation uu la sameynayo authorska ama qoraayada, oo author ID-ga ayuu keedinaa. book kasta authorkiisa ayaa tixraac loogu sameynaa ama relation. saas daraadeeda tableka authorska waxa uu relation la noqonaa tableka countrieska. tableka booksna waxa uu relation la noqonaa tableka authorska. 3 table qaabkaasaan ku sameynaynaa. Okay. waxaan imaaday Visual Studio Code ama VS Code kaasoo aan ku qoraynay querieskii databaseka markaan sameynaynay MySQL databaseka. waxaan rabaa inaan sameeyo marka databaseki iyo tableska. waxaan create garaynaa folder cusub ama file cusub. waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan oo kale create database.sql. waxaan create garaynaynaa database. create database ayaan leenahay. database namekana waxaan ka dhigaynaa if not exists. dabcan waa ku dari kartaa. if not exists waxa uu yahay databaseka aad create garayn doono hadday hore u jirto inaan la create garaynin oo kaas la isticmaalo, hadday hore u jirinna la create gareeyo. create intaas waa marka hore aan usoo baranay. database nameka waxaan usoo qaadanaynaa bookstore sida slideska kasoo aragteen. bookstore waxaan ku keedinaynaa magacan, waxaan ku keedinaynaa databasekeena tableska aan ku create garan doono. magaca databaseka u qaato waaye, adiga waxaa rabtaa u qaadan kartaa dabcan, laakiin aniga slideskan raacaa. intaan marka aan isticmaalno waxaan leenahay create, waxaan ku xiraynaa passwordka dabcan waa la create gareeyey. connectionkeena tagi karnaa marka si aan u aragno databasekaas inay jirto. connectionkeena marka aan tagno waxaan imaanaynaa saa u jeedid active connectionka inoo ah. inta aanan connectionka imaanin dabcan meeshaan ka arkaysid waxaan rabnaa inaan sameyno
edit connection inaan dhahno marka ugu horeysa. Connectionka edit marka aad dhehaysid investment ujeedid waa database-ka aan isticmaalaynay casharada hore. Database-kaas aan hadda create garaynaa kusoo bedelaynaa oo ah bookstore. Intaas marka aad tidhaahdid save ayaan leenahay, connect now ayaan dhahaynaa. waxaan isticmaalaynaa marka waa uu ku xiran yahay dabcan. So haddii aad fiirisid edit connection haddii aad dhahdid mar kale oo aad fiirisid database-ka isticmaalaysid waa bookstore database-ka. haddii aad inta fiirisidna database-ka aad arkaysid waa kan waa bookstore. haddii aad database-kan furno tableska furno wax table ah ma lahan oo tableka haddaan create garaynaynaa. saddex table aan rabnaa marka inaan create garayno. waxaan sameynaynaa marka file kale oo cusub ayaan create garaynaa ama sameynaa. Filekaas waxaan u bixinaynaa create waxaan sameynaynaa tables.sql. tables ayaan sameynaynaa. waxaan u bilaabaa ama ku bilaabaana waxaan leenahay create waxaa create garaysaa table. If not exists waa raacin kartaa, haddii aad rabtidna waa ka dhaafi kartaa. Aniga waa ogahay inuusan tablekan jirin, saas daraaddeed aan u isticmaalaynaa uga tagaa marka. Create table marka aad dhahdid tableka aad create garaynaysid magaciisa. Tusaale ahaan oo kale saddex table aan nagala rabay books iyo authors iyo countrieska. Okay. marka aan intaan dhahno waxaan rabnaa tablekan columnskiisa inaan sheegno inta column uu ka koobanayo. columnka ugu horeeya waxaan ka dhigaynaa id si aan ognahaba. id-gaasna waxaan ka dhigaynaa primary key oo aan ka tixraacayno boxka oo waxa uu noqonaa unique id inuu mar walba aan keedino. saas daraaddeed waxaan leeyahay integer ayaan ka dhigaynaa. primary key ayaan id-gan usoo qaadanaa. waxaan leeyahay waa columnka ugu muhiimsan tablekan waana inuu mar walbaba id lahaadaa daatada lasoo gelinayso ama xogta lasoo gelinayo. unique-na waa inuu noqdaa id-gaas. intaasna waxaa inoo sameynaysa MySQL. inaga ma rabo inaan id-ga sameyno mar walbaba automatic inuu isku sameeyaa rabnaa. saas daraaddeed maxaa rabaa marka auto increment ayaa isticmaali karaa nidaamka auto incrementiga taasoo ah in mar walbaba id-gan uu iscreate gareeyo isaga hal isku daro. tusaale ahaan oo kale wuxuu ka bilaabanaa 1 xogta labaad ee lasoo gelinayo 2 xogta saddexaad ee lasoo gelinayo 3 mar xog walbaba id-ga saas u soconaa marka. intaas marka aan sameyno auto increment aan sameyno book waxaan soo qaadanaynaa book title-ka ama title-ka book-ga. waxaan leenahay book title-ka waxa uu ka koobnaanaa tusaale ahaan oo kale varchar ilaa iyo 300 oo xuruuf aan keedin karnaa kasoo qaado kale. waxaana leenahay not null waa inuusan empty noqonin oo xog ay ku jirtaa. book title-ka marka aan keedino waxaan keedin karnaa sidoo kale price-ka book-ga. saas daraaddeed price-ka waxaan ka qaadanaynaa data type-kiisa float ayaan u qaadanaa. waxaan leenahay isagana not null empty ma noqon karo xogtiisa waa in lasoo gudbiyaa. column-ka kale aan qaadanayo waxaa waaye issued year sanadka book lasoo saaray inaan keediyaa rabaa. ogow waxaan keedinaa waa sanad bisaan keedinaa. saas daraaddeed integer aan iska qaadan karaa. integer-kaasna waa sii xadidi karaa waxaan dhihi karaa ilaa 4 god aan u baahanaa bis. intaasna waa isticmaali kartaa. sanadka not null waa raacin kartaa haddii rabtidna waa ka tegi kartaa. anaga waa ka tegaynaa sanadka not null mararka qaar waa laga tegi karaa leenahay laakiin waa sameyn kartaa every information oo required ah inaad not null saartid. columnka ugu dambeeya marka waxaan rabaa book-gan yaa qoray inaan u sameeyo marka relation. book-gan qoraagiisa yaa waaye marka. qoraayada marka waa table gooni ah ku sameynaynaa. qoraayada waxaan ku keedinaynaa table gooni ah. waxaan leenahay create waxaa create garaysaa table kale. tablekaasna waxa uu yahay authorska ama qoraayada table inaan ku keedino. kadibna aan dhahno tablekaas table walbaba wuxuu yeelanaa id sidaan qaabkan ayuu u yeelanaa table walbaba id. saas daraaddeeda ayaan usoo qaatay mar kale. kadibna waxaan keedinaynaa first name-ka oo qoraaga tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay varchar ilaa iyo 200 oo xuruuf oo kale aad keedinaynaa maximum inuu ka koobnaado. kadibna waxaan leenahay not null empty waa inuusan noqonin. sidaas daraaddeeda first name-kana waxaan keedinaynaa haddana mar kale last name-kana asagana waa sidaas uu la mid noqonaa. kadibna waxaan rabaa inaan keediyo genderka qoraagan lab iyo dhadig waxa uu yahay inaan kala sheego. genderka marka si aan u xadidno waxaan sameynaynaa male iyo female aan ku xadidaynaa. waxaan isticmaalaynaa enum ayaan isticmaalaynaa. enum nidaamkan wuxuu kaa saacidaa wixii aad rabtid inay column-kan soo gali karaan oo aan wax walba la iska soo gelin karin. enum markaan isticmaalayno waxaan isticmaali karnaa tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay column-kan waxaa geli kartaa male comma inaan dhahno female. labadaas ayaa soo gali kartaa. labadan wax ka duwan ma soo gali karaan. ogow male-na waa in muxuu ahaa qaabkan ay u qornaataa. male iyo female ayaa soo gali kartaa kaliya.
xog kale haddii lasoo geliyo wuu ka diidi doonaa error uu soo qori doonaa waxaana leenahay marka not nullna waa raacin kartaa ama waa ka tegi kartaa sidoo kale not null ayaan raacinaynaa empty waa inuusan noqon oo lasoo geliyaa aan leenahay xogta intaan xog marka aan soo qaato waxaan rabaa qoraaga marka waddanka uu u dhashta asna inaan keediyo haddana saas daraaddeeda waddanka marka aan keedinaayo waddanka table gooniyaan ka dhigaynay saa ula socotid inta waa ku keedin karnay laakiin si aan u badsanno tableliska oo aan hadhowta isugu soo xirxirno ayaan waddan kale oo muxuu ahaa table kale samaynaa waddamada ayaan ku keedinaynaa waxaan create garaynaynaa waxaan leenahay create table kale aan create garaynaynaa tablekaas waxaa u bixinaynaa countries ama waddamada inaan ku keedino kadibna aan dhaho muxuu ahaa xogta waddamada inaan geliyo waddanka waxaa u baahan inaan kasoo qaado kale name keliya u baahanaynaa namekaas waxa uu ka koobnaanaa farjar ayuu ka koobnaanaa farjarka ilaa iyo adi waxaa dhihi karnaa 200 oo xuruuf kama badan karaan dhihi karnaa name farjar marka aan dhahno not nullna waan leenahay oo empty waa inuu noqdaa macnaha marka hore not null intaada dhihin unique ayaan ka dhigaynaa unique waxa uu yahay waddamada mar walbaba waa in waddan lasoo geliyey mar kale uusan soo galin databaseka macnaha xogta inuusan tableka mar kale soo galin hal mar waa inuu soo galaa xogtan keliya waddankan magaciisa waa inuu hal mar soo galaa qaabkan waa samayn kartaa ogow id-ga inaan isticmaalno waa isticmaali karnaa id-ga tablekan primary key ahaan waa u isticmaali karnaa laakiin ogow nameka markaa isticmaalaysid nameka markaa isticmaalaysid oo aad isticmaashid unique oo aad sidoo kalena isticmaalaysid not null waa inuusan empty noqonin simple labadan shay haddii aad fahantid waa labada shay oo loo isticmaalayo primary keygan keliya primary keygan waxa uu ka hadlayo waaba labadan shay waa inuu empty noqonin oo muxuu not null waa inuusan noqonin oo columnkani waa inuusan empty noqonin oo data waa inay ku jirtaa mar walbaba datadaasna unique waa inay noqotaa namekan waa u isticmaali karnaa primary key ahaan ogow marka waa u isticmaali karnaa namekan primary key maadaama aan id-ga waa kaga maarmi karnaa laakiin inaga waxaan rabnaa id inaan keydiyo oo to increment samey laakiin ogow marka id-gaan keedinayna marka maadaama aan unique iyo not null isla isticmaalayno id-gan marka lasoo akrinaayo xogtiisa inaad ku wareertid maahan waxaa loo soo akrin doonaa qaab aan 1 2 3 u keedsanayn oo isku dhex qasan laakiin marka saas qaabkan aan u isticmaalayno marka xogta laakiin qaabkan kale kuwan kale id-gooda 1 2 3 caadi loo soo keedin doonaa primary keygooda kuwaas waa marka unique-gan ayaa waxa uu sababa inaan muxuu ahaa id-gan iyo waxyaabahan hadhowta ay noqoto waddamada magacyadaas ay u kala horeeyaan loosoo kala hormariyo halka id-ga la fiiri lahaa laakiin markaa create garayna arkaysaa saddexdii table waa sameynay countries table ayaa u dambeeyey waxaan dhahnaa marka countries table waxaan rabnaa inaan relation la sameyno tablekan maxaan sameynaynaa tablekana waxaan ku keedinaynaa columnkaasna waxaan u bixinaynaa country id kadibna waxaan ka dhigaynaa integer sababta integer ugu dhigayna waxay tahay waxaan rabaa xogtaasi inaan ku keediyo id-gan waxaan rabaa inuu meeshaan galo tablekan inuu galo saas daraaddeeda marka qoraal kastoo id-gan wata waxa uu automatically relation la leeyahay tablekan it means marka waxaan keedin karnaa xogta marka id-yada maadaama aan ku keedinayno authorska waxaan relation la samayn karnaa labadan table si lamid ah marka authorka maadaama id asagana uu wato bookskanna waa ku keedin karnaa waxaan leenahay author id asana waxaan ka dhigaa integerkaasna waxa uu ku saacidaa qaabka inaan u samaysidna waxaan sameynaynaa relation oo waxaan isla xiriirinaynaa tablekan iyo tablekan meesha ay ka xiriiri karaan waa columnkan oo aan ku keedinayno author id-ganna primary keygan mar walba soo qaadanaynaa country id-ganna primary keygan mar walba soo qaadanaynaa intaa ayaan ku keedinaynaa columnkan meeshaas ayaan ka tixraacaynaa sidaas marka aan sameyno waxaan leenahay run on active connection haddii error uu jiro in kale wax error ma jiro dabcan automatically waa la create gareeyey tableladii sidee usoo arki kartaa tablada in la create gareeyey marka waxaan tagaynaa databasekeena ama connectionkeena ayaan tagaynaa haddii aad fiirisid bookstore meesha dati nothing ahayd ama empty ahayd waxaa ku jirta tabladii aad create gareysay haddii aan waddamada ku hormarno fiirino waddamada aan furno dabcan xog ma la gelin because waan create gareyna keliya bookskan sidoo kalena wax xog ah ma ku jirta authorskana sidoo kalena wax xog ah ma ku jirta laakiin table walbaba haddii aad tiraahdid oo kale inta ku dhufatid describe aad dhahdid right click describe waxaa arkaysaa
columnska iyo data typeskooda iyo xogta dhammaantood ayaa arkaysaa sidaas marka waxaan ku create garaynay tableska marka ayaan xogta sidaas ku create garaynay hadda waxaan rabnaa inaan insertion sameyno marka sidee insertion u samayn karnaa insertionka marka aad samaynaysid xogta aad tablekan gelinaysid ogow tableka books ma u hormarinaysid because book markaa xogtiisa gelinaysid waxaa usoo hormarinaysaa wuxuu kaa rabaa tableka books author id ayuu kaa rabaa markaa xog gelinaysid marka waa inaa books ka hormarisid authorisk waa inaa ka hormarisid markaa datada insertion samaynaysid because authoriskan waxaa u baahan bookskana u baahan xogta markaa soo gelinaysid so waa inuu authoriska horeeyaa authoriskana waa inuu sidoo kalena wax u baahan yahay country id saa ujeedid so waa in countrieska uu horeeyaa automatically marka ama micnaheedu waxay noqonaysaa markaad data gelinaysid countrieska waa inaa u hormarisid kadibna authoriska aan ku xijino kadibna aan books u dabamarino qaabkaas insertionkana u sameyno la soco marka maadaama qaabka tableska ay relation isku leeyihiin oo iskugu tiirsan yihiin ayaa datada markaas lagaa rabaa inaa u kala habaysid okay waxaan soo habeeyey xog ama data taasoo aan usoo habeeyey qaabka ay u kala horeeyaan tablada insertionka filekanna waxaa ka arki kartaa qaybta videogan comment descriptionkiisa ayaa ka arki kartaa oo idiin soo dhigaa si hawsha kaaga fududaato insertionka marka aad samaynaysid qaabka insertionka u sameeyey marka waxaan u hormariyey wadamada sida aan hore usoo sheegnaba waxaan isticmaalay insert keyword insert into wadamada ama tableka aad xogta gelinaysid oo ah countrieska tablekaas waxa uu inaga raba keliya name inaan soo gelino saa u jeedid id-ga inagama gelinayno table walbaba namekana ayaa isticmaalaynay nameka ayaan soo gelinay waxaan dhahnay valueska nameka ayaan soo celceliyey marka qaabkan insertionka ayaa u samayn kartaa oo si aad multiple values usoo gelisid hal mar hal insert keyword adoo isticmaalaya okay wadamada qaabka u gelina marka qaabkan ayuu id-gooda noqonaa wadankan ugu horeeya id1 ayuu wadanaa wadankan kale id2 wadankan kale id3 wadankan kale id4 wadankan kale waxa uu qaadanaa id5 6 qaabkaas u soconaysa ilaa iyo 10 wadan ayaan xogtooda meeshaan gelinay wadan walbana waxa uu haystaa id ayuu haystaa laakiin ogow marka datada lasoo bandhigayo Canada lagu bilaabi doonaa because unique isticmaaleyna waxa uu kala hormarinta uu sameynaa qaabka columnkan nameka ayuu usoo kala hormarinaa meesha id usoo kala hormarin lahaa marka xogtan id-gooda isku qasan haddaa aragtid hala yaabin maadaama aan unique keyword isticmaaleyno kala hormarinta xogta saas uu kasoo kala hormarinaa laakiin datada sidan ayuu id u noqonaa mid walbaba id-gaas ayuu haysan doonaa 1 kan ayuu kasoo bilaabanaa 10 ayaa u dambeysa oo Russia ah tablekaas marka aan soo gelino xogtiisa waxaan sidoo kale soo geliyey insert into authoriska xogtiisa ayaa soo geliyey qoraayada first name iyo last name iyo genderka iyo wadamada ama wadanka id-giisa wadanka id-giisa ayaa waxaan ku keedinaynaa tablekan maadaama aan relation rabno inaan isla sameyno tusaale ahaan marka waxaan dhahay valueska ugu horeeya aan gelinayno fiiri value ugu horeeya marka aan sameynayno first nameka iyo last nameka iyo mailka marka aan sheegnay kan ugu dambeeya waxaan ka dhigay 1 kaas waxa uu yahay id-ga muxuu ahaa wadamada countrieska ay kala wataan wadankee id 1 wata inaga hadda sidan marka u fiirino maadaama sidan loo samayn doono Hungary ayaa wuxuu noqon doonaa id 1 saas daraadeeda qoraagan marka wuxuu u dhashtay Hungary ayaa meesha kasoo bixi doonta oo wadankaas Hungary ayuu wadan doonaa qoraaga labaad marka aan xogtiisa keedinayno first name last name iyo genderka waxaan siiyey id7 waa United States saas daraadeeda wadankaas u dhashtay ayaa muxuu ahaa lagu store garan doonaa id-giisa 7 ayaa lagu store garan doonaa tablekan qoraagan xogta labaadna marka aan sidaas oo kale u keedinayo id2 ayaan siiyey United Kingdom waa dabcan id2 aniga meeshaan ka fahmaa sababtoo ah qaabkan u keedinayo ayuu id u kala qaadana la soco arki doontaa markaad u daabicino qoraaga saddexaad aan keedinayo saas u soconaysaa saa u jeedid qoraagan id7 ayaa soo celiyey mar kale id7 kan waxa waaye waa id-ga wadamada id7 United Kingdom oo micnaheedu waxa uu yahay labadan qoraa ayaa isku wadan noqon doona saas daraadeeda marka wax mushkilad ahna ma lahan ogow inay isku wadan noqdaan saas daraadeeda marka id-gan waxaan ku keedinaynaa columnkan country id-ga ayaa ku keedinaynaa tablekan authorieska relations ay iskula sameeyaan qoraayada iyo countrieska laba table kala duwan maadaama ay yihiin marka aan qoraayada sameeyey
si lamid ah tableska qoraayada table walba waxa uu keedin doonaa qaadan doonaa ID-ga qaabka uu u kala horeeyo insertionkiisa kan ID1 ayuu qaadan doonaa marka la keedinayo xogta kan ma ahan ID-gan ha ka fiirin tablekan marka la keedinayo xogtiisa kan ID1 uu qaadan doonaa kanna waxa uu qaadan doonaa ID2 kanna waxa uu qaadan doonaa ID3 qoraaga labaad kanna waxa uu saddexaad kan afraad ayuu qaadan doonaa kanna shanaad ayuu qaadan doonaa kanna lixaad ayuu qaadan doonaa kanna toddobaad oo micnaheedu waxaan ka wadaa marka insertionka la sameynayo columnkana tablekana ID leh ID-gaas ay u kala horeeyaan ayuu u noqonaa marka 1 uu ka bilaabanaa ilaa iyo 7 ayuu gaaraa okay bookska maadaama aan keedinayo marka insert into books book titleka priceka issue yearka iyo author ID-ga ayaan keedinaa book ugu horeeya xogtiisa aan keedinayo waa kan bookgaas magaciisa waxaa principles of economics pricekiisa waa kan sanadkiisa waa kan xogtiisa marka ugu dambeysa waxaan ka dhigay author ID-ga labaad ayaa bookgan create gareeyay ama ayaa qoray author ID-giisa ku kala ogaanaynaa haddii aad fiirisid author ID-giisa 2 uu yahay marka insertionka la sameynayay authorkan ugu horeeya xogtiisa waa 1 ayuu qaadanaa kanna waxa uu qaadanaa xogtiisa 2 ayuu qaadanaa saas daraaddeed xogtaas kaas authorkaas ayaa keediyey kanna saas ayuu noqonaa marka authorkan oo shanaad ayaa keediyey oo shanaad haddaa soo fiirisid 1 2 3 4 5 kan ayaa waxa uu noqonaa authorka shanaadka saas daraaddeeda buuggan waxaa qoraan dhihi karnaa authorka shanaadka 5 wata hadhowtii arki doonaa xogta marka qaabkaas ayuu buuggu marka xogta u keedinaa marka buugtaas ay u kala horeeyaan intaan marka aan sameyno filekan waxaan dhihi karnaa run active connection filekii waa la create gareeyey oo haddii aad fiirisid sidee kusoo arki kartaa hadda wadamada haddii aad fiirisid wadamada haddaan ku dhufanno waxaan arkaynaa liiska dhammaan wadamada arki karnaa oo loo soo kala hormariyey qaabka magacyada ID-ga ugu saxan yahay hungary u horeyso soo maahan hungary wuxuu wataa ID1 waa kan laakiin magacyadana la fiiriyey marka la kala hormarinayo ID-ga lama fiirin la soco qaabkaas haddaa fiirisid United States waa 7 ayuu noqonaa ID 7 haddaan raadino waxaan arkaynaa United States arkaynaa qaabkaasuu marka u kala hormaraa dabcan hadda wadamadu waa noo keedsan yihiin authorieskana way noo keedsan yihiin haddaa authorieska fiirisid waa kuwan xogtii authorieska dhammaantooda columnka ugu dambeeya fiiri waxaa keedinaynaa ID-yada wadamadan keedinaynaa 17 qaabkaas uu kala soconaa author walbaba ID ayaa ku keedsan ID-gaasna wuxuu tilmaamaa wadanka uu u dhashtay ayuu tilmaamaa hadhowtii aan isku soo xiri doonaa bookska marka aad fiirisid waxaan keedinaynaa buugaag ayaan keedinaynaa iyagana oo xogtooda buugga qaybta ugu dambeysana waxa uu yahay author ID-ga oo authorka qoray buuggan ayaa waxa uu keedinaa ID-giisa waxa ku keedinaynaa columnkan si aan relation ugu sameyno ama iskugu xirno authorkaas iyo buuggan qaabkaas ayaa xogta insertion u sameynay hadda marka waxaan rabnaa maadaama insertionka aan sameynay sidee usoo aqrin karnaa tableskan qaabka aan tableskan markaa usoo aqrinayno sidee isugu soo xiri karnaa tableskan isku soo xirnaa rabnaa xogtii way kala qaadan tahay marka ujeedka aan ka leeyahay waxa uu ahaa marka cashiradan xogta kala qaadan marka aad rabtid inaad isku soo xirtid maxaad samaynaysaa sidee isugu soo xiraysaa marka videogan uu dheeraaday videoga xiga ayaan ka dhigaynaa cashirka xiga ayaan ku arki doonaa qaabka readingka loo sameeyo la iskugu soo xiro tableska muxuu ahaa kala duwan oo muxuu ahaa relation la isla sameynayo bilahi tawfiiq marka meeshaas ayaan ku sameynaa marka